بسم الله الرحمن الرحيم نبض wadayaal meel kasto oo muuqaalkayga idin ka soo gaarayo xubintan kooban waxaynu ku eegi doonaa mas'alo Allah xidhiidha xanuunka ama caabuqa loo yaqaan coronavirus iyo saameynta dhaqaale ama maaliyadeed ee uu dunida ku yeeshay tan iyo markii uu soo ifbaxay dhamaadkii sanadkii tagay 2019 caabuqan iyo dhaqaalaha waxa laga yaabaa in dadka qaarkiis weydiiyo sidee isugu xirmayaan waa wax xiriir ka dhaxeeya waliba qaybta aynu eegi doono waqtigan yara kooban waxay noqon doontaa suuqyada maaliyadaha iyo saamiyada waxa loo yaqaan ama financial marketska waxa loo yaqaan sida stock marketka iyo forex marketka ama suuqa gediska lacagaha qalaad markasta oo masiibo timaado ama xanuun yimaado inta badan waxaynu ognahay in uu nolol galaafto intaasoo kaliya kuma ekaato sidoo kale waxa ay saameyn ku yeeshaa ama uu saameyn ku yeelanaysaa masiibadaasi dhaqaalaha gaar ahaan isku socodka lacagaha iyo dhaqaalaha guud ama waxa loo yaqaan productionka ama wax soo saarka 2008 1929 waqtiyadaas waxay waqtiyadii ugu caansanaa ee dhaceen dhaqaale burburkii xagga suuqyada maaliyadaha ee soo dunida soo wajahay saadaashu sanadkan waxay sheegaysaa in 2020 ay u eg tahay in dhaqaale burbur kala dhaco oo dunidu ay hoos marto xariiqda ay kor uga sareeyaan dhammaan cabirka loo qaato lacagaha ee kor socodka ama horumarka 2008 waxaynu ognahay inuu dhaco wax loo yaqaan economic recession ama financial crackdown waxa loo yaqaan ama dhaqaale burbur ay burburada dhammaan suuqyadii maaliyaduhu istoogyadii ama sheerarka ay hoos u dhaceen dadku ay lacagihii kala baxeen marka bangiyadii ka yaalay bangiyada dabata interest rate-kii hoos u dhigeen wixii la oran jiray maalgelinta ama investment-kii lagu sameeyay guryaha ee ay ama mashaariicda ay bangiyadu sameeyeen investment ku sameeyeen iyaguna hoos u dhaceen dabata bangiyo badani ama financial institutions badani khadka ka baxeen hadda xanuunka ama caabuqa coronavirus hadda waxa uu marayaa in uu suuqyadii maaliyadaha iyo saamiyada saameyn toos ah ku yeesho suuqyada ugu caansan sida New York Stock Exchange Nasdaq Allahu musta'an suuqyada bariga dhexe ka Jabanka Chinaha dhamaantood waxay report gareynayaan ama ay soo sheegayaan khad cas oo sheegaya in caabuqa coronavirus uu saameyn toos ah ku yeeshay suuqyada saamiyadaha iyo sheerarka hadda bangiyadu waxay soo sheegayaan inay hoos u dhigeen interest rate-ka si loo iibsado sheerarkoodii tusaale ahaan hadda bangiyadu waxay doonayaan in ay capture gareeyaan suuq fara badan ama dad fara badan suuqa ka qabtaan oo sheerar ka iibiyaan maadaama dadku cabsi ka qabaan in hadda sheerarka ay ku leeyihiin kambaniyada ama shirkaduhu ay burburaan taa awadeedna ay sheerarkoodii iibinayaan haddaba si taas ay uga hortagaan waa inay interest rate-kii hoos u dhigaan taas waa istiraatiijiyada kaliya ee ay ilaa hadda ku dagaalamayaan bangiyadu dadku waxay sameynayaan withdrawal ama waxa loo yaqaan inay bangiyada lacagii kala baxaan waayo waxa laga cabsi qabaa in wixii 2008 dhacay oo kale ama dhaqaale burburkii ku dhacay suuqyada maaliyaduhu mar kala dhaco taa aweed bangiyadu dadku waxay sameynayaan wax loo yaqaan withdrawal in deposit-kii ama kaydadkii lacageed ee ka yaalay bangiyada la baxaan waxa kale iyaduna ay saameyn ku yeeshay caabuqa coronavirus isku socodkii dadka isku socodka ama waxa loo yaqaan dalxiisku inta badan waxa uu koriyaa wax soo saarka iyo isku socodka lacagaha qalaad taasi markay dhacday kambaniyadii waaweyn waxa ay sameeyeen inay dhimaan shaqaalihii iyo production-kii oo kale tusaale ahaan hadda Samsung oo kale iyo kambaniyadii waaweyn ee baabuurta oo kale waxay hadda isku dayayaan in ay dhimaan production-kii ama wax soo saarkii waayo isku socodkii ayaa meesha ka baxaya isku socodku maadaama meesha ka baxo ama import-ka wixii loo oran jiray dhoofinta oo kale iyo wadanku wax soo dhoofsado taas waxay keenaysaa marka in company-gu production-kii hoos u dhigo haddii production-ku hoos u dhacana waxaynu garan karnaa in dhaqaale burbur uu soo wajahayo company-gii markastoo company-ga dhaqaale burbur soo wajahana waa inuu shaqaale dhimaa markastoo company-gu shaqaale dhimana waa in suuqii dad badan oo bilaa camal u baxaan markastoo dad badan oo suuqa bilaa camal u soo baxaana waa markastoo oo shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumadu kor u kacdo marka halka aynu ka fahmi karno caabuqani sababta xagga uu ka saameynayo isku socodka lacagaha iyo dhaqaalaha ama kobaca dhaqaalaha iyo hoos u dhiciisaba waa bartaas ama waa halkaas
qaybta ugu wanaagsan ee aynu ku fahmi karna dhacdadani waa waxa loo yaqaan financial institutions ama kambaniyada ka shaqeeya lacagaha waxa loo yaqaan ama maaliyadda kambaniyadaasi waxay rasiif garanayaan intaasoo kun oo share ama marka ay bangi soo daayaan share waxay helayaan intaasoo macmiil oo doonaya inay shareerkooda iibsadaan haddii baqa yimaado oo macmiilku ka baqa in shareerkiisani uu ku waayo dhaqaale burburka imanaya taasi waxay sababaysaa in macmiilku ka baaqdo inuu bangigaas ama institution ka share ka iibsado si haddaba uu taa ula dagaalamo waa inuu interest rate-kii hoos u dhigaa haddii waxba kaga socon waayaan aakhirka waxa dhacaysa markaa bangiyadii in lacagii lagala baxo dabeeta ay sidaas bankruptcy ku dhaco taasi waxaynu misaal uga dhigi karnaa in bangiyada iyo dhammaan hay'adaha ku shuqul leh isku doorinta lacagaha iyo wareejinta lacagaha iyo sheerarkuba ay la kulmi karaan wixii dhacay 2008 ama waxa loo yaqaan salaasadii madoobeed ee 1929 meelaha aynu soo qaadan karno ama wax soo saarka hoos u dhacay waxa kamid ah shidaalka qiimaha shidaalka oo 8% hoos u dhacay halkii barmiil oo hadda mar 2.92 suuqyada China ama suuqyada Japan hadda waxa la soo sheegayaa ama ay khadadka cas sheegayaan in 4.4% ay hoos u dhaceen shareerkii iyo stockskii ay dadku ku lahaayeen kambaniyada bangiyada iyo wixii la halmaala sida ay wuxuu muuqdaan waa sansaan tilmaamaysa khad cas ama digniin cas oo sheegaysa in suuqyada maaliyadaha iyo saamiyadu ay wajahayaan wixii dhacay 2008 ama taariikhi ka horeeyay sida salaasadii madoobeed oo kale marka waxaynu u muuqataa caabuqani inaanu nafo kaliya galaafanahayn sidoo kale suuqyadii maaliyadaha iyo dhaqaalihiina uu saameynayo ilaa qofka ugu dambeeyo jeebkiisa saameeyo oo uu noqdo qofku wax loo yaqaan broke ama qofku kaco inta waxaynu kusoo koobi doonaa laxdad ama daqiiqad ku saabsan oo isku dul taageynay sida caabuqa coronavirus saameyn ugu yeeshay isku socodka lacagaha qalaad iyo suuqyada maaliyadaha ama saamiyada intaan markale kulmayno nabaday